MBL kaina waxay soo qaadeen finance bill hadduu yes anagana yes baa leenahay haddaan reefaafinahay aniga waxaan ka imaaday naane biilka finance bill MBL ka saddexda MB aan leenahay MB-ga Faafi MB-ga Garissa Township MB-ga Balambala waxay soo qaadaan diyaar baa u nahay diyaar soo ma tihiin diyaar soo lamaha marka waxaan ii sheegay MB-ga Faafi wuxuu qabtay nin kasta uu arkay oo reefaafi iskuulada ilmaha free baa laga dhigay fiida iskuulka waxaa loo gaday bus oo ilmaha markay iskuulka la xiro waalidkii wuxuu shilin u bixin cunugiisa loo keeni gawaari waa aragteen biyola oo meeja oon ka jiro inuu biyaha soo dari iskuulada xafiisyada waa aragteen oo buri hadda la dhisiyo marka wax qabadkiisa anaga waan la soconnaa MB-gayna waan garab taaganahay finance bill-ka uu soo qaadana diyaar baa u nahay haddaan reefaafinahay waxaa dhacday dawlad kaanu la dhihi jiray inaan daba taagnayn waqtigii 2002 oo isbedelku imaanay laba nin baan MB noo ahaayeen dhuujisi waqtiga Balambala ilma kala gooynin township aadan sugow iyo Xuseen bay ahaayeen kaanu dadada ku angajisteen wuxuu kaanu ay ku angajisteen oo Soomaaliya odil iyo gaalo odilna uu guuro Kibaki oo soo galay yaan haddana kumaana qasaarin laba astan minister aan ka helnay ma garanaysin wuxuu oo dekaan aan ku angagsanay nimankan anaga ma ka sayno macaarad si loo raaco macaarad dib wax la keen Raila wax ka keenay jalwa iyo Raila iswataan yaa wax ka keenay macaarad nimankan way saamiyeen khayr Allah si saddexdan MB gabadhaanada udgoon wasiirka way saamiyeen sahankoodana waan ogolahay maxaa yeelay Kenya waxaan ka nahay boqolkiiba 10% aan ka nahay umalayn dadkii naga badnaa naga xoolo badnaa naga dawladsanaa waa yeesir waxay u dhahan baa jirtaa anaga habeen iyo maalin nimanka waan daba taagan waa ina dirnay waa saan ni dirnay waxa la waxaan noo keentin diyaar baan u nahay waan aqoonsan annagoo afki cidda ku hadlayno idinka wakiil naga kuurahayna wadatiin wixii aad soo qaadeen odayaasha hore sheegeen sidaa noogu soo qaadeen bay naga tahay madaxweynahana waxaan u diraynaa reefaafi haddaan nahay Saalax Yaaqub Mashmuuc Saalax Yaaqub baan daba taaganahay fariintaasna waa nawageen dardaaranka kale wali baan ku siisaanayno nin baa hadaa sheegay mucaarad annaga ma ka sayno mucaarad ma garanayno mana raacayno qabiil ma sheegayno nin baa haday dhahe mucaarad hadduu wax tari jalwa waxa u tar waa runtiis annagoo nagala fara badan yahay nagala tira badan yahay yaan ognahaa mucaarad meeshuu dad dhigay maadaama aan saanno waan ka dambaynaa Faafi taladeedaan ku dhiibne waswaas la'aan ku soco waliba waxaan kala sii darmaanaynaa dawlad meesha ay marto mar annagana diyaar baan ku nahay Faafi Mashmuuc Saalax wax hadda ka hor Faafi aan ka dhicin buu inoo sameeyay horumar buu inoo siiyay sidii hortayda looga hadlabo waxyaalo fara badan oo barwaaqo Faafi aan ka soo jirin baa waag baa inoo bariyo horlay shaqadaan u dhiiwanay sidaan uga dhiibanay uga soo baxay Mashmuuc Saalax waxaan u malaynay maalinkan uu taagnaa oo kursiga uu raadinayay ballanqaadyo aan galnaa jirin aniga waxaan ka imaaday khaasatan Faafi ward khaasatan waxaan ka imaaday la yiraahdo Faafi Center dhaashay ballanqaadihii uu maalinka qaaday Mashmuuc Saalax shakhsi walba oo Faafi deganaa sidoo u qaado oga soo baxay ayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxay ahayd hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan qofka awaalki loo galo waa inuu garto marka Mashmuuc Saalax waxaan ku leenahay awaalka reefaafi way ku doorteen siday ku doorteen ba adigana uga jawaabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryaynaa inuu ka awaal mariyo laakiin bado tunasema kazi bado wa sababu wali shaqada way socotaa arrinka soo fuliseen oo yes asoo martay soo food gareyseen haddaan nahay reefaafi khaasatan reefaafi ward
tuko na wewe, tuna support na wewe, tuko nyuma yako. Tumesema kama ano afkire Fafi ward kuhadlay, yes. Mheshimiwa Salah, waxaan ku leenahay twende mbele, waa ku garab taaganahay horumar waag hor aynoo bariyay. Still tutasimama na wewe insha Allah taala. Dadka xogaa wax yar tirtirsanayna waxaan leeyahay wax yar oo isku diro macna ma lehe horumarka Fafi aan fiirino. Dante Fafi ninkaas ay ku jirtaa aan garab istaagno, hunguri aan fiirinin Dante Fafi iyo fikradda halka aan fiirino tusimamaynaa insha Allah taala. Mimi ni mmoja wao wa kina mama kutoka Fafi Sub County hasa Burra Ward. Nimesimama mbele yenu kuunga mkono Mheshimiwa Salah Yaqub kwa kuvote the financial bill yes. Mheshimiwa, tunakuunga mkono, tunasema tuko nyuma yako na tutasimama na wewe. Watu wa Fafi wamekuchagua na wanasema wewe ni kiongozi mshupavu, mchapakazi ambaye anaaminika. Kwa kuchagua wewe hawakupata hasara, walipata faida mingi. Sisi wakina mama hasa kwa niaba yao nimesimama hapa kukushukuru kwa kukumbuka wakina mama, wasichana, walimavu na wazee. Mheshimiwa, tuko nyuma yako, usiwe na wasiwasi, ukiwa na full support. So unaona venye simuonyesha furaha. Mko na furaha ama hamuna? Simuonyeshe mkono kama mmeunga the financial bill. Mmeunga yes. Mheshimiwa, you have our full support. Usiwe na wasiwasi, tuko pamoja. Yangu ni kupongeza Mheshimiwa Salah Yaqub akiongoza watu ya Fafi na anatuelekeza njia muhimu kikamilifu. Tunaambia serikali Salah ako kwa serikali na vile tumemwambia atufanyie ndio anatufanyia. Sisi tunasema watu wa Fafi, Salah ametutosha. Kama Salah alipitisha yes, mkono yetu sisi imeenda hiyo yes. Nataka kuambia ndugu yangu Senior Council Abdel Nasser, sisi hatukuchagua wewe. Sisi tumechagua Salah Yaqub. Sasa wewe kama unataka kuvote no, wewe elekea huko uvote no peke yako. Lakini Salah ametutosha na ametuelekeza mahali sisi tulikuwa tumejadiliana. Finance bill kabla hajapitisha Salah, sisi tumejadiliana, tumefanya participation. Ametueleza ile muhimu iko nayo. Kama sisi watu wa Fafi tunajua kuna lab set inajengwa hapa. Nawaambia lab set iko muhimu kwa Fafi na imeongezwa kwa bill na iko na mambo zake mzuri sana. Ya pili, Burra inapata housing 200 units. Na sasa Salah hawezi poteza hiyo umuhimu. Sasa Salah ametuletea hiyo na sisi tunatarajia ya kwamba hiyo finance bill itakuja kusaidia sisi. Salah tunamshukuru, asante sana. Na sasa Salah anatuelekeza sisi kwa njia ile kikamilifu ile inatakikana.